agaasimayaasha arrimaha gudaha maaliyadda madaxa UNCDF agaasimaha gobolada degmooyinka waxaa cali daale degmooyinka GPLG ama 8 degmo GPLG ka shaqeeyo mid qaarna agaasimada qaarna GPLG ka soo marlay expansion ka course dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaa halkan ama ku hadlay magaca dowladaha ururka dowladaha hoose Somaliland ee farxadayna arko in dowladii hoose ay u diyaarsan yihiin in la isla xisaabtamo qorshayaashoodina review lagu sameeyo shirkan maanta laba cisho socon doona runtii waa shir qiimo badan oo lagu eegayo qorshayaashiinii sanadkii 2020 ee dhanka maaliyadda sidaynu ognahay dowladaha hoose resource bay helaan resource-kaasi dhowr qaybood oo kala duwan buu ka yimaadaa qayb GPLG ka timaada ama SDM-ka iyo maamulka dejinta GPLG-ga qayb revenue-giini iyo dakhligiini gaarka on revenue-giini iyo qaybta kabka ama fiscal transfer-ka saddexda qaybood ee heshaan dowladda hoose ahaan 2020kii intii soo gashay sidaad u qorshayseen sidaad u isbeengarayseen intii aad ka dhigteen qorshayaashii iyo heshiisyadii la isku ogaa investment ama mashaariic ama horumarin laga dhigo inta hawlgelinta laga dhigayay inta mushaarooyinka laga dhigayay intaas oo qaybood sidaad u kharash garaysan ama aad u maamusheen ayaa soo jeedin doontaan insha Allah iyo qaybta dambe oo ah 2020 qorshayaashiina ku aadan maaliyadda dakhliga heli doontaan qaabku u qaybsami doono hadday noqoto kabka oo ay ognahay miisaaniyaddii in shalay maanta la ansixiyay oo filayno in sida ku cadba 12.5kii kabka heli jireen dowladaha hoose ay dhammaanteed heli doonaan runtiina halkaa dakhli badan baa ugu soo kordhi doonaa isla markaana waxaa iyaduna iman doontaa accountability isla xisaabtan iyaduna oo haddii dowladaha hoose kharash badan iyo maaliyad badan helaan macnaheedu maaha la isla xisaabtami maayo wixii aan ka doonay wasaaradda maaliyadda way soo daadejiyeen way soo dhammaystireen arrimaha gudaha aad ugu mahadsan yihiin inagana isla xisaabtan iyo accountability iyo daahfurnaan badan ayaa laynaga doonayaa dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin qayb badan baad rajaynayaa iska faa'iidaysi wanaagsan. Assalaamu calaykum.